waxaanu aaminsanahay in caalamku hadda u soo jeestay inta jecel iyo inta nacabna waxaanu leenahay ilaahay ayay Soomaaliland leedahay hambalyo iyo bogaadin soo jeedinaya munaasabada 18 May oo maalin aad inoogu qiimo weyn marka hore shacabka goobta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkan aan xuseynaa maalin aad u qaayo weyn dhammaan waxaan mahad iyo bogaadin soo jeedinayaa intii halkan ka soo ajiibtay oo runtii u badan dad ehla asxaaba iyaguna qarinimadu ay ku weyn tahay qiimo weyn oo haya qalbiga iyo aqligaba ka jecel waxa muhiim ah in la xuso halgankii dheeraaya loo soo maray madax banaanida iyo nabadda aynu harsayno maanta oo waqti dheer qaatay nafo badan lagu waayay iyadoo wadankan iyo qarankani uu hadda yagaleelay ictiraaf waxaan ugu ducaynaynaa inta ka harsan in ilaahay uu ka dhigo wadan gaara higsigiisa iyo himiladiisa waxaanu kaloonu insha Allah biidnillah rajaynaynaa in uu noqdo wadan hore u mara halkii la rabay iyo halkii ugu wanaagsanayd iyo aqoonsiga oo soo kordha dowlka caalamka oo ictiraafa Soomaaliland shuruudihii ictiraafka way buuxisay waxaanu aaminsanahay in caalamku hadda u soo jeestay inta jecel iyo inta nacabna waxaanu leenahay ilaahay ayay Soomaaliland leedahay in badan ayay u soo halgantay u soo dhibaatootay haddana waxaanu taaganahay waqtigii uu dalkani noqon lahaa dal aqoonsi haysta waxaan rajaynayaa inay taasi miro dhali doonto caawa xafladan waxaan si qof ugu hambaliyaynayaa uguna mahadnaqayaa ka soo qaybgalka fiican ee wanaagsan ee karaamaysan intii halkaa noo adeegtay waxaan mahadnaq gaar ah u soo jeedinayaa hoteelka Gulf Hotel Maxamed Sheekh Faarax oo runtii casuumadan isagoo iguna lamaanaa oo hawl culus ku dhacday waxaan u hambaliyaynayaa dhammaanba hablaha qiimaha badan hablaha Soomaaliland ee runtii inaga mudan ixtiraamka iyo xushmada iyo qadarinta oo iyagu markasta aan lafdhabarta Soomaaliland waxaan kaloo hambaliyaynayaa odayaasha ka soo qayb galay dhalinyarada dalku idin baahan yahay waanu idin baarigaynaa waxaanu rajaynaynaa ilaahay sanadkiisa inuu gaarsiiyo caafimaad raaga cimri dheer iyo barwaaqo iyo nabad iyo amni insha Allah